الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فدقا وكيل بعد كمدة حلقة أهيد فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما قان عاو مسادك وثوب حدا في السين أوشي الله سبحانه وتعالى كان لي تسويس خير إن شاء الله. فدقاني وكيل بعد كسابسنا فدقوا كبر حق إنه كسب من السلام أمين. فدقاني وكسابسنا يعني لما يستركي كلمة هايد إلهي سبحانه وتعالى دين كيسا إيو إسلام نمدا قابك وناك سندات كلوجو يريو لوجو باقيو وناك يسمها يعني كداعية المسؤولية دا إسرائيل وحل جربي يتلمام الدورة إن النسينا أي كلمة تاريد وحكالو يمرك أي داريد مشورين تانك هاي قواعد شان إنه حق كصوم مري شان كلا إنه قدرنا إن شاء الله. dadka muslimiinta ee dunida dacalada dhooban meel walba ku dhiban mas'uuliyad diineed tarbiyadin ka saaray qaabkii ugu wanaagsana ee dadkaasi u badbaadin lahaydeen kadib markaad naftiina badbaadisaan ayay kelimadu ku dul wareegaysaa. waxaanu soo maray ninka daaciga ah in laga rabo mamnuucna ay ka tahay waxaan islaamku ogolayn in ummadda ugu yeedho. ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو عزاء الجاهلية قاعدة كبير أهيد. هذين إسكاشنا إنه أما إسبهيسنا إنه أما أن أرسميسنا إنه أما إنه أديك إيوه إسكاشتو إسكوكو إيمانا إنه وإن الله الدين كسلوغو أديك هاي وحي كبحسن إنتاسنا والدين الآن يدقن كي جاهلية ده قابك السوء أنا يستو أما وحلو وأبتر صدايا إنه صوم مرة قاعدة صدح قيمة بحناي مباح يا محمود هي شيء مذموم خلاصتنا وحي أهيد لما أقول الروح مسلم كا يدتك مسلمين تا يدتك دنبالك وناكسن إسلام كوباقية إن يتحزب الرئيس يفرقين أي لي مادن أما أساسا أمدنا أي كالتشبيان waxaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ka ahayn ummadda inay ugu yeeraan aan la ogolay. qaacida labaadna waxay ahayd inay daruuri tahay oo ducaada laga rabo inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka dadka muslimiinta ah. arrinka midnimadana uu yahay asal min usuuli diin almuslimiin waa asal weyn oo kamida tirarka diinteenu ku taagan tahay midnimo iyo wadajir iyo wada socod iyo isfahan inuu yahay ركن أساسي ودينتنا كترسن تفرق أي اختلاف كلا تجونا أو بأي هاي شرعيين يدينتنا وقلي. قاعدة الدحاد وحيا هيد آدمه هنا اسمان دافان أما أن وحون إسلقفان ووحو ربكو خلقي وطبيعة بشرية خلاف كان إلا أقاسمه الله سياسة دينا وحكم شرعي مركا اختلافك وطبيعة بشرية. سياسة الاختلافنا ومسألة شرعية بي أهيد قاعدة صدحات ومركا إنه قيب إنه خلاف كمد لغوض السعون كرو ويمدو كودة جيري كرتو حقنا أن داوعني من نمدي إيو اسكو دوبنانتي أن كردان تالي إيا خلاف أن لغوض السعون كرين ومركا كحدنا مسألة كل بميزان كأي كل ذي دينتين أي كل ذا عليسك أي كل هذا كتابك السنة حق أدلة ده. إذا خلاف لقوة السعون كرو يمدان لقوة السعون كرين أو قلبه الله بنيا ميزانك يثقل كأي مسألة كل هذا كتابك الله السنة ده. تاسنوا يصومرت الخلاف السائغ هي خلاف غير السائق هذا يعني كصومر رمد أيضا وحين تلماني خلافك السائغ مكلة بي أمضى بربر مكينو اسكودع مكينو kala dhimasho ma keeno waxa keena kala dhimashadii burburka waa marka khilaafkii cunnamayay la dhaafiyo xadkiisa iyo tankiisa lala antaraaro oo marka baqyi uu yimaado. baqyigan waxa keena waa inaga soo tilmaanay waa in nadarkii ijtihaadiga ahaa ee kula qumana la ahaanshahaadii iyo la qumanaanshahaadii aad asal ka dhigto aad dadka ku goynayso ku xeeranayso ninka kugu yeelana aad ku yeeli كي كوجدي كلا تجيسان تأصيل النظر الاجتهادي ببغي كيانه
iyo wixii la midka ah waa inaga soo maray qaacidada u dambeysay qaacida afraad waxay ahayd ninka daaciga waxaa laga rabaa inuu yahay nin fidhoon oo dhugle oo qiimeyn kara kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyo dadku u yeedhayo iyo beledka uu jooga qiimeyn kara qiimeyntaasoo keenaysa kolba ruuxan ilaa bukaan way ruuxa bini aadamkee diinka ugu yeedhayso ee wax ka khaldan yahay waa ruux buka qaabkaad oola tacaamuli lahayd ama sida sahaynlad wax ugu sheegi lahayd ama aad diinka ugu soo dabaayi lahayd markaasay kuu soo baxaysaa bacdama aad diraasaysay asagii xaaladiisa aad qiimaysay xaaladda la joogiyay zamanka aad fiirsay beledkiisa iyo dhaqankiisa iyo curfiga caada aad qooraansatay waxaa kuu soo bixi qaabka ugu sahlan ee ninkaani loola xaajoon karo taasna waynu soo marray waa kii nabigu ku yidhi mucaad bnu jabal inaka ta'ti qowman ahla kitaab aw min ahli kitaab falyakun waa kii nabigu u sheegay yidhi diyaargarow mushrikiin iyo wathaniyiin baa dhex joogtay way islaameen muslimiin baad hadda dhex joogta waxaadna aagi doontaa niman ahlu shubahaad ah ahlu kitaab ah oo indhaha taagahaya oon carabti hore ahayn oo kula doodi kara oo fooda ku gelin kara ka diyaargarow col hortii hubbaa la yeeshaaye qaacidadaasi qaacidadii shanaad bay ahayd afraad cafwan qaacidadii afraad waxay ahayd in ducaad waana meelaha u daran lagu khaldamo ninka daaciga ama faqiiha ah ama caalimka ama sheekha ummadda hormuudka u ah waa in uusan ku khaldamin danti islaamka ama xukumkii diineed iyo muraadka sharciga ahaa wadiiqa loo maray haddii lagu gaadhay taa macnaheedu ma aha waddadii loo maray inay saxanta alghaayatu laa tubariru lwasiila bal waxaa shardi ah wasiiladu inay mashruuco tahay maqsuudkana uu nabiil iyo xamiid yahay waddada aad u marayso shaygan wanaagsan eed ku hirgelinaysa cadaaladda eed ku hirgelinayso runta in la sheego eed ku hirgelin in laysu naxariisto eed ku hirgelin amni iyo in la helo deganaansho iyo kala dambayn la helo waddadaad u maraysaa waa inay tahay waddo sharcigu ogolyahay ujeeddadadu waa inay fiican tahay jidkaad qaadayna uu sharci yahay inaadan dhihin baa la doonayaa maxaa yeelay dowlad heblo waa dowlad fiican maxaa yeelay nabad bay keentay nabad maxay ku keentay joogkii yidhaahba in la dilay ku keentay matalan ruuxii soo firimay indhaha kala baxday ku keentay musaxanaanaysaa abadan xusuul almaqsuud alsharciyi bibacdi alwasaa'ili laa yastalzimu almashruuciya qaacidada ahayd bal laabudda min nubli almaqsidi wa sharciyat alwasiila waa inaga soo maray faina alghaayata laa tubar alwasiila qawaacidda markaa fadhigeennan aan u soo dogo weli tilmaamihii kuu wanaajin lahaa ama kuu kontarooli lahaa dacwadaada wacyigaadana kor u qaadi lahaa ama waad haysataa waad taqaanaa ee kuu tartiibin lahaa baan dul maraynaa shan qaacido muhiimaad soo marteen idinka rabo inaad ku dhaqantaan ood hirgelisaan dalabatulcilmi aad u badan tihiin macallimiin wada koofiyad weyn baan arkaa waa la badan yahay ummaddan markay idinkaa u maqan iyo inta idinla midka ah ama carab ha noqdeen ama cajam ha noqdeen nin walba marka mas-uuliyaddiisa iyo xilkiisa iyo shaqaduu qabanayo waa inuu aqoon u leh daacadnimada kadib qaacidada lixaad ee marka aan ku bilaabayno waxaan leenahay daacigu waa inuu fahmo oo maskaxda iyo maanka uu ku hayo ujeeddada shareecada loo keenay shareecadan kitaabka qur-aanka uu asalka u yahay dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna ay dabagelayso tafsiirna u tahay iyo caddaynaya bayaan ujeeddada loo soo dejiye loo keenay maxay tahay culamaau lmuslimiin markay kitaabka rabbiga aayadiisii dabagaleen axaadiidana ay kormeereen qaacido yar bay kuu sheegeen oo fahamkay kitaabka rabbiga ka fahmeen ayaa sunnada nabiga waxay yidhaahdeen alqasdu min wadci shariica alislaamiya wa ikhraaju الnufuusi can ahwaa'iha xata yakuuna annaasu cibaadan lilahi ikhtiyaaran kama hum cibaaduhu idiraara ereygaasi waa maxay af soomaaligiisu waxaa weeye shareecada waxa loo soo dejiyey ee kitaabka qur-aanka loo keenay ee nebi maxamed 23 sano diinkii idinku yeedhayey waddadaana uu nabigu ku tegay ummadduna ay ku dabagashay waxaa weeye addoommada bini aadamka in laga saaro oo hoggaansanka naftooda ay u hoggaansamayaan oo addoommuhu laga dhigo addoommo ilaahay rabban oo ogol
أيوه الدورنا يسيدا أيضا ما دام هران باي أهايين الضم إلهي اضطرارا قصب وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها لما أنت المركل إلهي ما ملكيسي قدرديسي رب النميسا لأيقو الضمان هاي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عبودية معيطة واتية هاي العبودية الاضطرارية القهرية أما قال مرحة إسكادك أما فرعون وكلنقو أما أضون صالح ونبي محمد كلنقيه الضومين النهاي ما مخ ربي بين مريا أما أن دورنا أما أن ديدني درق بينه مريا لأنه وانا لليهي مملوكين بان الضومان شريعة مركا وحلوس دجول لو كيني أضونكو إن كحروبه قميسي النفتي سوء قميسانيس وإلهي سبحانه وتعالى وهو قانسمه ونقضه أضون ربي وكوقان عصان وربي يشعل ونفتي كحروب إلى نفته ويكون أضون صني المقصود القصد من وضع الشريعة وإخراج النفوس عن أهوائها حتى يكون الناس عبادا لله اختيارا كما هم عباده اضطرارا انتاسا شريعة الله كان ninka daaciga markay ummadda u yeeray ee diinka ugu baaqay waxa la doonayaa maqsadka iyo ujeedada shariicada ee kulliga inuu ilaaliyo laba dariiq haduu helo oo midna ummadda diinka ugu yeeray midna takalaba ugu yeeray karo ta u sahlan ee adoomada rabbi ka dhigaysa ee maqsuudka shariicadu ugu dhow dooranaya hadiyo koor ujeedadaasi kulliga قاعدة كلية مقصد شرعي وإن داعي إلاليه وإن معلم إلاليه وإن خطيب إلاليه وإن أحد والبو مسلم وحلسارية هوشا أو دورا لقدونية يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وإن نفط أتكحرودو الشيطان أتكحرودو دبقل كيدو أظهر ربي سبحانه وتعالى ميشو كوكوتا لقلي أد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل أيضا القرآن كان معناها قيمت آد بأبدين قصة كاسية قاعدة هذه يقول وانا كنت الوريكتو فتاوينك خلدا انحلالك خلقك أما عقدك قبل دعو حكيمة ده مركات كإل ضوفتو وشيددي دين كان لو كيني adigu aad daaci u noqotay ummadda xabadkaada u garacda waa maxay waa inaad ummaddan soo dabaasho alla u soo dabaasho diinka ku soo celiso ka xoraysa naftooda iyo shaydaan addoommo ilaahay rabbanna ay noqdaan ayaa loogu talagalay hadaad horboodda ka war horboodku waa diinta shaydaan iyo ibliis waxa hadda yurubi galbeed ka socda waad maqlaysaa baasha meesha maraysaa hadda waad maqashay hadda waxay maraysaa nin weyn oo konton jir oo hiradu halkaa joogto inuu yidhahdo waxaan dareemayaa nafteeda ii sheegaysa weli inaan aqaan gaadhin reer yurub bay marayaan hadda ingiriiska iyo yurub halkaas maraysa marka waa in lagu ixtiraamo lagu qadarin aniga dareenkayga waxaan dareemayaa weli inaan aqaan gaadhin meeqaa jirtaa goormaa dhalatay 1970 meeqaa jirta konton iyo meeqo wey konton iyo saddex jir ama laba jir waxay marayaan inay yidhaahdaan ayagoo lixda lixaad qaba ay yidhaahdaan waxaan dareemaynaa aan nahay handhikaab xuryaan jiis calaan baan dareemaya ama macduur afkii reegaaris macduur bay dhahaan ninkaa saa u socotaa macduur annagu waxaan u naqaanaa gabdhaha dhiiggu ku dhacay reegaarisna macduur waxay u yaqaanaan ninka cagaha leh ee lixda lixaad u dhammaystirayna ama aan jiis ka dhahna ama aan dhahno inagu xuryaan ka dhahno waa inaad Soomaaliya kala fahanto gabdhihii Soomaaliya ka soo qaxay diinka baranayay macallimiinta reegaaris 91 ka isku rafaadeen عشرة كسوب معلم معذور بانهاي محمد معذور كادق واقل لحد الحب القبطاي كبح 10 كان كوري قال اسكر رفاض المهم وحي مريان إلى يدهدان
nin weynoo 60 jiro 60 lixad ilaahay u dhammaystiray waxaan naftayda ka dareemayaa inaan ahay macduur ama aanay curyaan oo dhammaystiray waxa leeyahay lagu ixtiraamo qoliya waxay dhahan waxaan dareemaynaa inaan u qalmin bani aadan ay baan rabaa noqon ay wah waa lagu ixtiraamaya midba wuxuu yidhi igu yaaleen hawlihii raggii waxaan dareemayaa inaan bilcaan ku fiicnahay waa in la tixgeliyay waa loo tixgeliyay waxa waa maxay ahwaa'u nufuus nafti baa adoonsatay shaydaan baa adoonsaday maqsadkii shariicada laga leexday maxaa shariicada loo keenay kutubta loo soo dejiyay aadamaha in laga xoreeyo inuu adoon u noqdo naftiisa iyo shaydaan ilaahay iyo abuurayna uu adoon dhab u noqdo maqsadka marka waligiin yaa laga ildoofin هذا الشاطب وحاكمه قد تقرر أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها مركل وحوليها إن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله مرصد حد حولي الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله كما هو عبد لله اضطرارا إذن علماء دون با قضية كهلاية قاعدة تضباط إيراد وحاوي وحنو سلفها هني إن آمنتان ودقاتان إذا كده دكتوات قانين لكن لها كلا قادان محلو كان شرائع ده محلو كان آدمه إن النقدان الضم إلهي كان حروبان نفي الشيطان هذا الطريق والبؤ الضرين إن آدمها والضومين الشيطان ينفوين كدكتو وين تكهر تماد وما بهند آيات القرآن اللي أدرجته مركا أيضا لأنه هو مقصد كلئة والشرائع دون بأيليهن قارها شرع عليهم وروح عن هبل وآض والضو الضو مضى وكبر بكو كينيا نحرس در بكو كينيا حد قدو بكو كينيا إن بنا آدم ماذا يكبحان بكينيسا وروح عن شوتش بالله آيات كان آيات وما بهند وواحد تلوسو دجيبا بني آدمكم وحال الربائين إلهي اللي يقول حريه لما ربوه إلا هور أرضو إيغا اللي هور بوده إلا أي نفطه دي أي أدون سطوي شيطاننا وكبقليه قاعدة صدع تطوبات وحين نسلفها من الشريعة محل هذا وحين نصوني دي شريعة محل لو سدج شرائع محل تاي شريعة مركو تعريف قود يقيحد قود لقب بحين أيوه أما إلهي سبحانه وتعالى سدج الشريعة السماوية هالنقطة أما مدي آدم روبتين هالنقطة وإن بني آدم كاللوتشح وضعي قادار قول لي وحن وبناي هاي وحن واتسمين كرتا يا ما سمين كرت شريعة وإن لوجود شيء منهج يا قانون كورونا يا وحن واتسمين كرتا وحنا ما سمين كرت قال هذا هذا كيدي تشتين وامحي وحبي سمين صنيان وحلي وحين أنا سميه والرايد حق بنقوله وحقي وأنا حقي حق ومليد وضول هذا هاي waxaan xaq baad u leedahay oo ma lihid waad samayn kartaa ima samayn kartid meesha waxa laga qaata waxa la yiraahdaa shariicadu waa inta الشريعة ومنهجك iyo طريقada waxna ku fasaxaya waxna ka ku diidaya manci iyo idni way waa manci iyo idni samee iyo ma samayn kartid waad samayn kartaa iyo ma samayn kartid oo loo dajiyay si guud ayadoon xasaan iyo cabdinuuriyo abu maxamed midna aan la eegaynin إذن وحا لما سمين كرا وحا والله سمين كرا قالوا مركا قوانين دساتير بيودجستان يقولين إلهينا سبحانه وتعالى على ألسنة الرسول يبو شرائع إذا كنت شيئا كونا كينا شريعة مركا وإنتاس علو حيليه معنى الشريعة وحاول أنها تحد للمكلفين وعبارة الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات اعتصامك إن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته الشريعة إن الشريعة إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون وإنت إن وذادوه كل رفاضان شريعة محلي هذا تقنين محلي هذا تشريع لما بانو آدمه سيدو ضوء مركي ميل اسكوي ومدني آدمه بن آدم هو اجتماعي ومدني بالطبع بالي هذا روح آدمها كلي من نولان كرو بلشئي وهل بوبهاي بلشئي وهل مركا اللي هلنا
آدم واسكو دحي واحد كula quman baa ninkan la qaloocan labadiina waxay la quman bulshada dhan bay diidayaan isku dhac baa iimaanaya waa in la helo xeer iyo qaanuun kala haga ummadda xeerka iyo qaanuunka ummadda kala hagaya haddii alla laga qaatana waa maxay waa shariicatu raxmaan haddii ilaahay khayrkii laga qaataa nidaamka iyo xeerka aadamaha kala hagaya ilaahay khayrkii laga qaatana waa maxay waa shariicatu shaytaan waa intaa wax kalaba ha ku mashquulin war dadkan bulshadan meesha iskugu timid ee tuuladan degan maxaa lagu maamulayaa maxaa lagu kala hagi hadday isku dhacdo hadday isqabato hadday isguursanayso haddii wax kala gaadhaan maxaa lagu maamulayaa ma waxa iyada la quman oo duqaydii reemiga maamuli jiro kale wixii la qumanaa reebel maxaa u xeer ah ma waxa iyada la quman baa lagu dhaqi mise ilaahay wixii uu rabay baa lagu dhaqahayaa إرادة الرحمن هذي شقيسو شريعة الرحمن وي إرادة غيرهم من الخلائق هذه اللي رقمنا وشريعة الشيطان والأبالسة معنى الشريعة وإنت ومعي الحجات بكل لفظ يدين سوغوري شريعة معنى وحاوي وحيكو حدين أو يكو سيرين فالكات سمين لهيد ويردت كو هذه لهيد تنلقوه قاين تلقوه قال لي هاي واحد آمين واحد آمنين واحد لقايلي واحد لقايلي بمعنى الشريعة وحي حكومة يسابق يري إنما جاءت لتحكم على المكلفين على الفاعلين عفوا من جهة ما هم فاعلون فلسفة الشريعة وإنت آدمها الله أبو كل جيبا واعيانتيس فلك أي لا إيمانيان يا وحى كردعاي يا وحي كو أقداماني يا وحي السمينيان بشريعة كهالليسا ويكو سوقي مالك التلاوة قاد وحي كلها التلاوة قاد ياكو يري halka lugta maxaad u dhigtay shariicadu adiga dhaqdhaqaaqaadiyo falkaaday daba taagan tahay waa seetada iyo dabarka ku daba taagan ee waxa xunna kaa dabraaya wax wanaagana ku fasaxaay xooluhu meel baa lagu dabraa meelo waa lagu sii daaya meelo waa laga celiyaa ninka xoolaha dhaqan muxuu sameeyaa xaggaas u leexin xaggu ka duwi danteedu ka shaqaynaya الله خالقك أبوري أنت كله كيسي أنت النعمة أبال كوك قليبا وحكولي وحكو قمصمو كان واكو قسنياي كان واكو قحياي شريعة مركو حمامو ليسا ويحدود السمين ليسا ويكلا فافاهين ويكلا أجازمي إنك فالكينا شريعة وأنت كان هذا معاك لهجا ألابا يجو السمايستي وشريعة الشيطان المسلمين تنا معاك لهجا شريعة الرحمن وانت بلشم ميل كنو انت يدونها لا كاتي وحي لو حكم لهذا الشرع الليل هذا وحي لو دق لهذا الليل هذا هداد كي ربي نقول دقدنا خير هداد كوكا نقول دقدو هذا مشهد اخر عادي اذا الشريعه معناه وانت قرانكم وينو شيغي وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم لهم اللي اختلفوا فيه سو ما هي وحول بيس كم من دافان يا عضيسان القران كله سدجي وحول بيس كم من دافان ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وحول بو عضينيا حكوميا ومن البيان الحكم ومن البيان المنع والاذن وحول بيس شريعه عضينيس waxay ka tagtay ma jiro hadaad maqasho nin kula sharcadu qayb aysan cadaynin ama aysan xukumin baa jirta waxa tira zindiq baa tahay ninka sidaa yiri caalim baad sheegatid muslim ma tiyade laano shar diinta baad ka shakineysaan ayada hadda maxay jiri wanazalna alayka alkitaba tibyana likulli shay marka iska ilaali وهدى ورحمة للمسلمين وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الشريعة وإنت وحيكون شيء قاعدة كصابسا إن أدفانتو ودادو معالنو أرضيو وحرو وشيخو نبضون يبلبادو إيه شريعة محلو كيني ما حد يترى هذا شريعة محلو زدتشي إن آدمها أي كحريسو
addoonnimada naftooda iyo shaydaan kuna xidho allah subxaanahu wa tacaala. shareecii maxaa tahay? waa xeerka maamula falalka aadamaha. intaa miyay kaa dhumi? shariicu waa maxay? waa xeerka iyo qaanuunka iyo lagu agaasimo aadamo wuxuu sameeyo, wuxuu aamini, wuxuu ku aqdaamani, wuxuu ku hadli ayaa shariica la yidhaahdaa. daacigu inuu asaasiyaadkaa fahansan yahay. waxaanu u tarkiisanaynaa qismi sharaa'ici waa meeshay aafadu ka timid, ee aqoon darradu ka timid, ee ninka duubanee daaciga rag badan oo ka mida ay fahmi la'yihiin. haddii xilkii dhan maqaasidii shareecadoo dhanba aad ilowdo oo howlo furuuca aad ku mashquusho, mushkilo kale waa mushkilo kale. qaacidada sideedaad, shariicadii sidaa ahayd ee labada qaacida kaaga sheegay masaa'isheedu iyo axkaamteedu waa laba qaybood. xugum walbo ilaahay uu dejiyo iyo xugum walbo shareecadeenna ku jira iyo mas'alo kastoo sharcigeenna dhex yaala laba maslaxay xambaarsan tahay. xikmo juz'iya iyo xikma kulliya la yidhaahdaa. maa min mas'ala xugum ma jiro iyo mas'ale ma jirto shareecadeenna ku dhex timid oon wadanin maslaxo gooni ah iyo maslaxo guud oo ummadda u dhaxaysa. maslaxada goonida waxaa weeye xugum walba xikmu wataa. ilaahay wuxuu yidhi haddaad istishaan oo laisku xadgudbo kas laysu dilo qisaas baa idin jideeyey. qisaastu waa maxay? xikmada khaaska ku jirta waa maxay? jus'iga waa in nabad la helo. walakum fi lqisaasi xayaa, nabad, amni, deganaansho, xasilooni baa la heli, waa la kala nasani. waa xikma jus'iya oo xukumka qisaastaa wata. xikma yaa maslaxa kuliyana way jirtaayo xukumka dhan waxaa loo jideeyey aadamuhu in xeer loo dejiyo ay ku dhaqmaan. waa jaclu lmukalafiina taxta qaanuunin mucayan, wadcu lmukalafiin taxta qaanuunin mucayan. xukunka markaad fulinaysa maxaad u fulinaysa? qisaasta markaad yeeli maxaad u yeelaysaa? alla weynaa ku amray, xukumkii ilaahay weeye, xeerkiisii iyo sharcigiisii weeye. addoonku iyo aadamuhu inuusan lugta furanin oo uusan haadaan ka dhicin oo balaayo kale aysan u gacan haadanin yaa la dabrahaya, waa la seetaynayaa. xukumkan iyo qaalabkan baa la dhexgeliyey, xikmana wuu wataa oo nolol ah iyo amni iyo badbaado ah. marka xukum kastoo shareecadu ay la timid iyo masale kasta waxay xambaarsan tahay xikma jus'iya wa xikma kuliya. kuliyadu waa maxay? gadhow lagu daaya gafuur dhaaf waa inaysan noqonin. jaantaa furan ma aha, waa in adiga lagu xakameeyo, waa lagu laylaya, waa lagu carbinaya, dhibowgaa lagaa saarahayaa. waxaa lagu leeyahay seerahan kama bixi kartid. xeradan xeradii ood weynoo kale ee maxaabiis dadka lasoo qafaale ee xoogga looga dhigayo askarta la gelin jiray oo kale lagu gelinaya, laakiin adiga dantaada lagu gelinaya. dan khaasana waa ku jirtaa oo maslaxa diineed ah, mid guudna way ku jirtaa. hadalkaas naqliga masalada ayada culimada markay ka waxay yidhahdaan ama aljus'iyatu famaa yucribu canha daliilu kulli xukmin wa xikmati. midda juziga famaa yucribu canha daliilu kulli xukmin wa xikmatihi, yacni daliil kasta xikmaduu tilmaamaya, maslaxada ku jirtu tilmaamaya. indhaha laabaa la yidhi, danta ku jirta maxay tahay? waad garan kartaan. indhaha laabo cawraadka ha eeginaa la yidhi. maslaxa ku jirto waa maxay? idab baad yeelan, anshuxumadaad ka tegi, akhyaar baad noqon, dembigaad ka badbaadi, isha kuu badbaadi. waa lagu indhabeela muxaramaadka iyo cawraadka la fiiriye. xikmada guuda ku jirtana waa maxay? addoonku inuu noqdo addoon hoggaanka yeelaya. xeerka ha dhaafin, dabarka ha ka boodin, ishada idab u yeel. dhan waxaad ka qadanaysaa fadhiiso iyo kacbaad yeeshay, maamulkii baad yeelaysaa, qaanuunka sharcigaa lagu dhex dhigay, lagugu xakameeyey, lagugu ooday. dhanna waa maxay? dan khaasoo adiga kugu jirto islaamnimaa ku jirta inaad isha laabto. وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين
من تكاليف الشرع في جميع التصرفات اعتقادا وقولا وعملا فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع ونص الشاطبي في الموافقات. وإن أتساء فهمتم مسألة كستا أو دينتنا كميدا آتشدا هذا دن خاصة كجرتا أدوما الله فريو كجرتا دن قودنا وين كجرتا يو أين لا إلاليو وهو جانسن كي قودا للوه جانسمي وحين يصلصوا مري وتشدد اللوسو دجي الشرائع ديان فهنو وحين يصلصوا مري وحا الشريعة لقوضه وحين ودن بيسي مسائش الشريعة دون وحي كوبان تاي لبا قيبود مسألة كستو الشريعة دينا كميدا وحي حنبارستان وتشيدا لبا حكمة مد قودي مد قارهانيد انت وين يسلفها عني محايا لي الله سبحانه قادر أو عالم أو علام أو حكيم أي دجي الدين كان ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم أضمن الله إسكال أسقى أبوري وحي قصة ما بأسود دجي إلى أدونك اللي قرر أنا لغم ما لها وحكى قرصون ربي متشر ما أنت هلا بدلوا وحي أو حسن دجيوي وحي هلا بدلوا واسع واي شان سنة يكون دقنه بل هدنا هلا قط الشذو وهؤلاء آدمه أي وتورط لكن علام الغيوب وأضمن إسكاله حكم كيس لما بدلوه قاعده كالصعودة وحي مركة تغير وقالوا وجزئيات يرير أو حكم هي علل خاصة وخضوعية باختلافها بونا اسبدلي كان مركة أيضا وإنه صوم مركز الشريعة حق وصائش هذا شروط بينه وإنه صوم شيء والبق والمركة أبانا أما دويدا كسو كرده قانون بينه قلنا شريعة إنه شيء علماء إنه شيء أفضل شرط بوها هبينكي ورئيس أن كسو هذا اللي بان شروط السو شيء قاعدة سقالات حفظ الدين ومقدم على حفظ كل شيء إجماعا إن دينك الله إلاليو أو الله دورو أو أساق لو سوچيدو أو نساق جرنو أو إلاشون وحوال بوكو الريا مركز أمد دانتيد كهالليسو أما مصلحات هذا قيمينيسو أما أبو حوصة من أيضا عليه الضنبي أطاي وإن الدين كذا مركو ردح قليسو أو ترى الشيء كان دين تدن موية همسو أو معها إسلام نمضوا محو يليا محو أطريا محو أردميا وانا تجراد حفظ الدين ومقدم على كل شيء إجماعا مسألة خلافية ما نفط مالك عقلك نسلك عرضك وحل بوحلق هرمرنا يا دين تإن لا دور محا يلي محا كتمد وحي كتمد أدونك وحلقوك الدين كائنات كل قنطو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبأجدد اللقوة أبو ريبة وجدد اللقوة أبو ريبة إلا إلالي أيا وحوى البكاقين بدون كهري إلهي عند الله وعند رسوله وعند المسلمين شيء والبو مصلحة آخر إلالينا أيا لقهر مرينا مدى الدنيا هذه وذا سعون ويا لكن أصل وإن لا إسلام وضوه مصالح ده أدونك يمد الدين تون وصلة جان قادان محايا إلي الدين كان وحاسود شيء اللي دينك وحاسود شيء اللي الدنيا أبوري مرة بيسكوري من مهيان عقلك الصريحة وحيك الصحيحة كموري ماده الرمها آخر مديدان كمان هو ريمادان هولها الدنيا لكن هذي مسكحده فندوده مسألة جابنا عن نقطه مسألة مسارتنا أي كاف بيشو وحلقة يابا إن تكرر دعيسو الرين كان دين تؤفعين لكن دنيا ده وبابين يا كان الدنيا تؤفعين لكن دين تكون بابايس أبدا هذا مركا عقلك هذا فونتا هذا حنوسن هذا وبين اللي قداوي maxaa yeelay ninku khamrada cabo sankiisa la eekada 5 mitir 20 mitir adoon soo gaarin buu iga leex ku leeh maxaa yeelay dareenkiisi iyo maskaxda dhan baa ya sabaynaysa nin sarqaansano marka waano hawadiisi iyo shahwadiisi iyo kursigiisa uu khariibay iska horkeena adduunyada iyo aakhirada ama diinta iyo adduunyada laakiin markay urtu saxan tahay waxa weeye lamir qabo adduunyada iyo aakhirada Allah iska leh
labaduba allah iskale soo quraanku idima sheegi ummadana allah iskale waxigana allah iskale isma diidayaan say u wada shaqayn lahayn allah ugu talagalay uuna yaqaana waynu inoo sheegay uuna cadeeyay laakiin marka inagu fundoono wax kasta ka dhaadhicinaysa ninka dumadu ay hayso shaha macaan buu xula noqdaa kharaad dacar buu la noqonaya inna anzalna alayka alkitaba linnaasi bilxaqi baale nabi allow kitaabkan qur-aankan kugu soo dejiyaan soo dejinay dadkan dunyada ilaahay alla baabi'ay muu yidhi ma dhihin ee adaa dadka ummadda ku ciyaarahay oo waxaan aan jirin u sheegaya faman ihtadaa falinafsih waman dalla fainamaa yadillu calayha wamaa anta calayhim biwakiil adiga mas-uul kama tihid yani laguma haysta waxay sameeyaane waxaad mas-uul ka tahay inaad diinka u caddayso waana masaladii in badan ku khaldamaan ducaadu aad iskaga ilaaliya adoo leh dadkaani haddii maxaad u haysaa haddii kitaabka qur-aanka lagu dhaqmo oo ilaahay kitaabkiisa la tixgeliyo oo asaga ha lagu kala baxo oo miiska ha naloo soo saaro wax kaana laga daayo haddii se haddaan yeelno waa la isbaabi'inoo gaajaa loo dhammaanoo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa halkaa nugu dhegi oo majlisul amni baa wixiisa la kala bixi oo waxaa weeye qolihii dariskaababa iska soo dhaqaaqa oo nagu fata bilaasiya ummadda maxaad u haysaa ummadda waxaa u haysaa annaga wadaaddaa waan ka jawaabi weynay marka maad fahanteen haa shareecada waan qaadanaynaa sidii maxaakimta oo kale maxaakimta waagay way qaadatay hadda waa kii lagu kala tegay maxaad ummadda u haysa ummadda maxaad u haysa adiga hawl kuu taalla ma aha nabi maxamed maxaa lagu yidhi falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayk وضائق به صدرك أن يقولوا إسك إلالية لقوم درس إن هذه هو شيء يقدر صدي وحلو صد دري أمانة ديب ومضى سيه فنو جارسي هكذا تنازل مبدأ إلى شو ضيقاتان خير هدي ديدان الله لا حساب طبيعي أبو واحد أوديه وناقة إيه أوده إيه حوق إيه حيلة إسكوجي wixii ka soo haray ummadda maxaad u haysaan allihii abuura u haya xalkeeda waa kaa qaadato maxay ka faa'iiday dimuqraadiya tijaabiyeen 50 ilaa hadda waxba ka keeni waayo shuuciya tijaabiye ku fashilmeen qabyaalad bay tijaabiyeen 91 everbase kaga dhigeen waxba waa ka keeni waayeen hadday dib rabaan inay ugu noqdaan mar baan ka hadli doonaa hawsha Allah subhanahu wa ta'ala taaban doonaa laga dhammaa لأنه حاجوين صوتهم طيبة كتيرة وهذا اللي مركان رجع يستقدم حاجوين أنا يسور هذا ذي حاجة صوتهم وتصانجي إلا وتقرنيس لكن هذا ما حلقة هذا الله يقسمه إذنكو وحال إذن كربا وروحات ورثة الأنبياء باتي نبي محمد علومدي تروان وقان حلكي سباتي نبي أنت الله صوت دري أمد وجود بيا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه وحذرهم أن يفتنونك عن بعض ما أنزل الله إليه نبي قال له الدقاية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إن أظن ما هي أدبانا مصافل بانوها سيدة برت ومضم حضوها يسار ورجع عدق روح سآد بالي هذا كنت سجلتين والله مدرن أضو وحاد هيسي الدنيا مدر وحكسي حلك هذا هيسي الدينين طاعت أنه شيء وأنت هذا حلك حلك الله كصار أدوك جدو ومضوي صومالي وكيف بربطلوك لا تجي دولة إن كجرين ما غصن ها ما ينتهي إلى الله بكون اللحدي وأقول إذا بيمكن هو قراعي عبد الله يوسف مغاي بغسروي لحية 8 سنة لحية 8 سنة الصومالي وان نول في عم بيكون نولاي وارد قناعي دينتي والله برطيبة قبل بقى نوع حجابتي كتابك الربي اللي حفظيه بقى قويا لدي سنة يدتك وارد قناع ريميقو دولتنا ومتت وارد قناعي waxaan isku qufusheena beenta ah iska ilaaliya
إذا وحاول أمضى وين دين كذا وحل بكهر مريسو قاعدة سوى قاعدة سقالات الدلة بداني نقول فربضان برميش كسو قري لكن هذا وقت ما دام ويري هاي وانكتقية نبي عليه الصلاة والسلام أمد الدين كذا سلو إلى عليه وحوقاي أقاري وصحابته كجيري وإن استعمل عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف أسود فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله وماش قدام بيسي قريش عرب لا قاريوي أدون دقا قرقوران أمدو أو حبشي هدي لايدين كدقا أمير وهقان سما هدو إدو هقان من أيوه كتابك الله إلهي نحن شيء قايا والله انقابي وفولحون يهي ومدو يهي وتمقون وريبار وسنقدود وسنبقف هولهاسي إلهي أكتيس قيمة كمالها أدونك حقوق قيميسي وحو آمنسي هاي إلهي أدوميس وأسميهين مثل فوشحنا الله أبوري كقرحصنا الله أبوري لانقابك الله سمي لانديرهانا الله أبوري كل الله أكتب كسميه لكن بني آدمكو قيمين تضرب رسولك الديدية مع حقوق قيميزان وإن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله في رواية يقودكم بكتاب الله مهمة وحفظ الدين كتاب رب وإنه التاليه كتابك ربي يهدي لوايي نظام يان لواي صحما وحقبه مسلمنا مجرو أوصاف الدولة الإسلامية وصف ذات آجرة الوصف الذاتي هدي لواي شيء مجرو وصف الذاتي قال لي دوام حيوات المان شيء حقيقي سكترسن أديك بني آدم نكهة إمحاك كمية المامها الذاتي هدي لواي أنشرين وحاتر وحنا الروح بني آدمون أن عبسانين أو أن قاتشونين أو وحونين أو سحرون أو كاتشين وحال له روح حسب بنادم مهم ملايك بعض أركتان قديه ملك وي إن هذا إلا ملك كريم لأنه وحد كسرت الروح هاسي تلمانتي بني آدم يا بشر لقول نقول لها شيء هدو وصف ذاتك متشريه الدولة الإسلامية النظام الإسلامي وحو ودنتا إنه تليو كتابك ربك يسنو إنه تليسو مشروعية الشرعية وحن كقاينا شيء عن كتابك ربك ملغوم معاملة الدولة عن كتابك مكتل يمسك متليو هدو كتليو والدولة الإسلامية نينك هرشوغونا وحاكم إسلامي هدو سنكتلين متشرو ومحانو يال إلهي وحولي الرسول كيسي يومدو كو إجماعين وإلا الدميو واجب وإلا الدميو ما بقى هنو الإسنادو محايا لي محاطة ميسان أوضاع للشريعة ياد بدشين با وقلب للأمور شريعة الله ورمى الاسكوء قايو كتاب كان لي إلالي نظام كان لي إلالي ودين تراك البيت من قد لا يقوى وين إيبان نهي يعريانا ناي وركودوي مركب النبي الصحابه وحكوا إذا أعجزتم إن بعثت فيكم رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري نبو النبي أمير وقد الصحابه دوروا بحي فريموا النبي فريبو قيب كميدا فلون واي مركز يقول أمير كسر دكتين إذا النبي حفانسينها يا ور إمارة يدورد ووسيله ujeedaduna waa in shariicada la ilaaliyo la dhowro say idinka noqotay haddaan nin amiir idinka dhigay oo talooyinkayga uu fulin waayey intaad casishaan oo booska ka raaxdaan ka qaadaan wadaad kale maxaad u caleema saari weydeen buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam cabdinuur hadda hadduu yidhahdo meel baan gaadhiyay hebel oo dadka saad sii tuji ninkii saadi hadduu qaban waayo maxaad samaynaysaa ma cabdinuur baad tugaysaa mise shaarkaad ku dhegaysaa waa tuuraysaa ku kalaad gelinaysaa ninka ujeedadii loo calmaday fulin waaye waa culaab weeye culays buu nagu haya waa tuurayna ku hawsha fuliyaa la keeni nabigu tii buu sheegaya acajaztum
إذ بعثت فيكم رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. إشارات من النبي أسي صحابته إن وسائلك أن لغو خلدين مقاصد مسألة إجماعي ويكحبك نقول معي وحنسو قد بيا إمارة إسلامية نينك داعية وين وقتك بحيو نينك داعية النظام إسلامي استاجين تيسا إسلامي ستيت إلا هلو وضرورة دينية وحكم شرعي وقطعي خلاف ما أقبله انكراد سوى لغو قالوبي ضيعت الله ضيعنا ولغو نار مضاني وإنو آمنه جماعة دعوية أنا وسياسية مي بانوي جماعة طوحانا الدعوة يدقوا حق السبس هولها أنا أبي حماية بان كلوي شرع الله خائمة هي ودقر الدينين النظام إسلامي اللي هيله والمسلمين تيشان مامل أيقو مامله هوستا وكتابك ربك أطليو نينك الداعية وينو مسكح يمانك كوهايو ومدنا الجارسيو فريمي سنة وكدرو سيدنا أبو بكر با كلت سدايري عمر بايدي عثمان بايدي علي بايدي صحابة ودن باتري كتابك ربك يبقى كهل سنة كهذا شيء وإجماع المسلمين وحن فساد الوضان ودن بهدين نظام إسلامي لهل إذا بادي ليس قبل حمصية إذا أبو بكر وحي كتري دين كان معانا وناكسن حلو سيدنا أبو الخليف كأها انتينو سيجيرها إياه عكوري انت ما ملكين الشريعه كل معي سيدنا عمر بان لو يدي سو حجي او ليري وانا كان كورن وانا كان وحيدين جيرهايا انت مدحينو اي هاغاغسنتاي كتابك ربي كل دقميسو علي بايري مدحدا waxa loo sameeyay diinka inay ilaaliyaan ummadana dhowraan oo diinka ku soo dabaalaan laakiin madaxda adduunka maanta noo magacaabo waxa way kuwa loo magacaabo inay diinka naga saaraan oo dhaqankeena ku tuntaan oo ay khayraadka anaga baatulaan waxay doonaan ka sameeyaan shaqo lagu malaha qadaayaadka marka ninka daaciga waa inuu tarkiisiyo waaybaynu wadi jiray islaaxuna wadi jireen akhwaanku wadi jiray اعتسامك ودي جيرين تبليغ ولا يو شغل بكم لها حسابك لا لما قاعدين بيو كلي حزب التحرير با ودي جيري هذا هو اللي قد علي هذه فرحي كقاده من الدستور كنويا لو برلمان كان نود دجنيه وعلبو نود توسنيا اكو هيا يجال مدحوينه المجاهد الكبير وهذه اعتسام يقول أنا سيدا مصبحي المجاهد الكبير هاي المجاهد الكبير ممكن أنت قوس بابيين محاط غبتين وحاط ثمين لي ذنب برا وإذا سوقها يا حاجوين بيصوت دوني وركاينا الفانتين بنو ملاينية نينك الداعية نينك معلمك نينك مدة وحبرية نظام إسلامي إن له له دين هي ضرورة بشرية مسألة شرعية قطعية ويا ونو مدة وشيغو كان هاول قالوا محا إسلامك استيد أدي دنتين جوش استيد باب الشريه فاتيكان استيد باب الشريه محا إذن كدول لك إذن كدقا مضميراتي فكرتاasi diineed waa inaad horta aamintaan oo ummadana u sheegtaan tabarteeda Allah na gaarsiiyay sheegu goorma horta aad raatataa markaad ogtahay inuu ka maqan yahay waxa ummadda quraan baraysaan ama dacwo aad wadaan ama dadaal aad wadaan waa balcan baacuri hal bacaad lagu lisay xagga jiritaankiina taariikheed iyo aayatinkiina mustaqbaleed marka la fiiriyo انتين هذا القران كاخرت شو ما دهي كرتان وضع مسيسا شو ما دهي كرتان هدي الذي يلاد ونظام هوس شوكتان يدولة كوس نور الدين اما اسلام هالشيغتا اما قال هالشيغتي اي ترى عرض قران مجري شي بادايس معلومه مظاهره اذا كدي ما تكا مسيسا اول ببيرتي سو هذا هي حقيقه واسده متى بزمان أمد الدين كذا وحا إلى لي النظام إسلامي
ummadda diinkeeda nabi maxamed baa ila awood buna ku ilay awood rabbi iyo madu ilaahay geliyo subxaanahu wa tacaala wasaga nidaam u dhisay ah سيدنا أبو بكر بأمة الدين كذا إلى لنا وداد ميل فرديو محاضرين ما إلى لينكره معلم قرآن ما إلى لينكره شيخ مفتي قاضي ما نظام سياسي تالو أقول ملتري لعيدا أي الدين كإلى لنا وأنا سيدا أوقاتا يا إذا كان معلم بدل معلمين تيسلي جو كلية سيدنا أبو بكر موسى هيزني عمر عثمان hawsha ogaada hawsha waa hawl idin ka maqan kutubta waad ku akhrisataan laakiin idinku jirto mashruucina dacwi ah kuma jirto midda qaacida kooyo tobnaad waxa weeye alwasaa'il la turadu limaqasidiha wa'tibaru alwasaa'il yasqutu bisuqut almaqasid halla ku khaldamin oo waxaan ka wadnaa وسائشو اسكيد لوما ربو ايغو ujeeda ma aha ul dheer baad soo goosatay ruuxan waxaad ku fali hatta xabagtaasan ku soo goosanaya ujeedadu waa maxay waa xabagta ushuna wasiilaad ku gaaraysa xabagta way ushu marka ayagu ma iskeed baad u rabtay mise dan kalaad ka lahayd ushu dheer soo goosatay tusaale gaaban haday xabagta gaaraydo maxaad samayn وطوري اللي محي قبان ويد وجيدتي بحقيقة ويدي والكدر باتراتن وثو ويدي توكلات كوكبي تحرك كل حيده إذن الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها وسائشو لو ربا أو لو دنيا فلنت يقبشتي كو قبانيسا دنت الله يا أيدو اسكيد looma rabo loomana doonayo saadarteed haday wasiiladu iyo adeegu iyo wadiiquhu qaban waaydantii laga rabay way dhacaysaa ictibaar ma laha halka maxaynu ka rabnaa culimadu waxay ku ijmaaceen nidaamka iyo maamulka iyo madaxweynuhu iyo inta ka hooseyso dhan waa maxay waa wasiilo iyo adeeg loogu talagalay shariicada rabbiga inay dhaqan geliyaan ku dhaqmaan hirgeliyaan anaga nagu soo dabaaraan aadamaha ku ilaaliyaan haddaysan dowladdu shariicada ilaalinaynin ku dhaqmaynin kitaabka rabbigayna aysan ka hadlaynin asaguna uusan talinaynin dowlad ma aha waa ushi dheereedii ku gaari weyday xabagti cadaadda ahayd ku gaari weyday wanaad sida u ogaataan wey aafadu hadda marka maxay noqon Soomaali intay daashay oo burburtay oo rafaaday oo say isku caydhsanaysay xuduudaha jeedhay waxay iska rabaan meel un maal la iska yar joogan oo hadhaca oo iska yar qabow oo shaha ku cabaan oo ku sheekeeyaan kaliya quraankan ay ku tijaabiyaan akhrintiisa wax kale oo u maqan iyo wax jeedo kale ay leeyihiin ma jiraan iska ogaada marka alwasaa'il la turadu illa limaqasidiha fa idha saqata almaqsad سقط اعتبار الوسيلة وقاعدة إجماعية في الأصول وفي الفقهيات صادرتت أيوة وحن لنا هاي قاعدة كالو دما يستري ساجرته وصائشي أما شروط اللوغو تلقلي دما يستري مقاصد هدي الكروي ويد عضاه لكن مقصدكم مدعها وقاعدة وحورنيسا طلب يطمنادا متى تعذر الشرط العلم بالشرط أو حصول لم يعتبر متى توقفت بعض المصالح الشرعية على شرط وتعذر تحصيل لم يعتبر كل تكملة فلها شرط وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال لم يعتبر إن هذه فانتان مرة نكمل حوينها مسلم كا تصالح نسي شروط بالله شرطية طبعا كله وحا شرط انه مسلم يا مدحوينهن وحا شرط انه يهي بالغ قانقاده وحا شرط انه عقلي ليه يهي وحا شرط اللبان وانه لبيا ددق مدحوينه نقون مايو وحا شرط انه يهي حر ادون لما اوغلو ومركا هوش اي سعانتاي وحا شرط عدالة
waxaa shardi cilmi mujtahid waa inuu ijtihaad leeyahay waxaa shardi salaamatu alxawaas walacdaa xubnihiisa inay bad qabaan oo dhammaystireen si uu halgamo oo ummadda waxooga qabto u taliyo inuu cafwan kafaa'a nafsiya leeyahay nin caqli badan geesi garaad leh si ummadda ugu taliyo ilaa nawaasil baa iman xaalada silmi iyo xarbi baa la geli talaa loo baahan yahay waxaa ka mid a shuruudda inuu qurashi yahay waxaanoo dhan shuruudda maxaa loo dhisay shuruuddaasi waxaa loo keenay in ninka ugu wanaagsanaa ee kitaabka rabbigay ku dhaqmi lahaa ummaddana ku dhaqi lahaa aynu soo saarno shuruudda saasaa lagu talagalay shuruudda noocaas ruuxa laga helo weeye ruuxa ugu habboon ummadda inuu kitaabka rabbiga ku dhaqo kuna hogaamiyo kuna dabaalo shuruudda qaybo ka mida haddaynu weyno kitaabkana uu leeyahy waa idinku dhaqi xaggana uu nagu dhaqay maxaa la samay u fiirsada hadda meesha iyadaa waxaan helay nin le kitaabkaa talinhaya qurashi ma aha waa faasiq caadil maaha cadaalad aqoon ma laha badan oo mujtahid ma laakiin xoogow yaroo wuu haystaa oo xerta ku dhex joogo laakiin mujtahid ma aha laakiin intii kalaa laga helay waa muslim waa caaqil waa baaliq qaangaadha waa xor hadduu doona addoon ba ha noqdo qurashi ma aha kafaa'adii buu leey inta labada kafaa lagama tegi karo haddii kale waa bilaash geesinimo iyo caqli iyo ra'yi ma indhala'a xuryaan ma aha wixii looga baahnaa bini aadam baa laga helay laakiin waxaa ka maqan cadaaladdii ijtihaadkii qurayshinimadii kitaabkiina wuxuu leeyahay sidiisaan u fulinayaa hadda aqoonba meliide culmo ii soo ururi leeyahay mujtahidiinta ummadda ha la ii keeno mushawarkooda waa diyaar ayadoo masalada ha ii sheegan anaa fulinhaye oo faasiq baate war khamrada anaa iska dhuuqaadu maxa kaa galay hawlahaygan anaa iska watee ummad kuma qasbahaye kitaabka ha taliyo ninka khamrada cabba ha la karbaasho marka laygu arkana i karbaasha kitaabka rabbiga iga fuliya maxaa idinka galay isqigayga ninka maxaynu ku samaynaynaa متى تعذر العلم بالشرط أو تعذر حصوله لم يعتبر بل واقعده لا تعقل الماء وعلينا وما باهنا كتاب قاتلي مع الله صعدا مقصدك وجددي انت اللي هليو شروطا كان لقوم مشغول ماي والنبي كسويري وإن استعمل عليكم عبد حبشي فاسمعوا له واطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله لكن مسلم هو شرط أن دعينه إنه إسلام ما دعاي لأنه معاي مع الله كان يبقى إسلام إنه إلهية الله كان ما قال إسلام إلهي اسمه كينيس ووصف الذاتئة مصعون يسوشا وين الطوح كلا فانتان شروطه لا أود واي أما لقى جاري واي لما اعتباريه وحين كودنا تسالم بين السنية gabadha muslimadda marka la guursanayo ee la meherinayo waxaa shardi ah weligeed inuu raalli ka yahay weligii baa la waayey warya waxa lagama hayo ama idanba lagama heli karo maxaa la samay alwali waa shardun lisixati nikaax wuu suurogeli waa laga tagaaya gabadha waxaan leenahay ama qaadiga aad ama muxakam meelaha ka soo qabso howlaheena shaaficiyada aad garanaysa xoolaha aadamu maxay kugu bannaanadaan xoolo adigu aadan lahayn maxay kugu bannaanadaan waa in ruux ilaa uu kuu fasaxo baadi baad heshay ninka laha lawaa waad yaahdisay maxaa lagu samay adaa ku caliiqubahaya shaygu wuxuu xalaal shardu lxilli maali lghayr muxuu ahaa ruux kale hantidii maxay kugu bannaanaan jirtay inuu asagu raalli ka yahay kuuna fasaxsoo maaha ولا هو شرطي لكروا محل السمين ولذلك النبي يقول بادي ارقم حكيري انما هي لك او لاخيك او للذئب رموالك ابو بحسن دونه هريد وصور هاتنا بادي اسلام واتضب
ama aday ku ahaan doontaa neefka badbaadi haddii kale yey iyo dhurwaha uga tegin idan hal la isticmaalaa la yidhi waa shardi aan la hirgelin karin maxaa ka mid ah التسمية neefka la cunayo hilibkiisu waxaa shardi in bisinka loo qabtay bisinku inuu shardiyo ibn qayyim wuxuu yidhi dhowr iyo 10 daliil baan u hayaa meel kale aan ku faafayay dhowr iyo 10 daliil min kitaab ilaa waa runtii 4 iyo 10 daliil buu ibn taymiya keligii hal maalin meel ku sheegay waa mas'ala maxsuuma iska daa khilaafiyaadka annaga shaaficida hawlahan iska jooji aan camdi iyo halmaan kala qaadayn waa baab kale adilla alqur'aaniyya wanabawiyya waxay tilmaamaysaa neef aan bisin loo qaban inuu bakti yahay shardiga ilaa la helana oo la xaqiijiyana neefku xalaal ma noqdo idinkuna hadda waxaad cuntaan kawaanaad xoola ka soo gadataa hilba ka soo gadataa waa iska bashuqsataan maqaxyaha inoo furan bashtaad ku haysaan in bisin loo qabtana war ooma haysaan في الأصول والأصل في الشروط عدم الحصول حتى نتحقق من حصولها شيء شرطك وحا أصل إنه سنهرجلين إلى أن هبصني هرجل كيسنو هرجلي تصمية يا بسم الله إذا ما هيسان حولا والعنتاني كورما حيكون بنانات قاعدة وي الشرط متى تعذر العلم به أو تعذر تحصيله سقط اعتباره سداسوي إلا إذا هذا الناف كاستهل هذا نين كان بس ما وقف طيب مسمايا عليس باكوتشرة وإذا ضاق الأمر اتسع وحنسكر حنبارينا شيخ هبل وي مع الهبل وي أهي وسو بسم الله اسكعون حمل أحوال الناس هي على الصلاح هذا مها مسلمين تو waxaad ku xambaaraysaa hawsha inay hagaajiyeen ilaa hubsato inay ka tageen dabagelkiisa iyo shardiga xaqiijintiisu cusri iyo culays baa ku jira rafaad iyo ciriiri baa ku jira gaajayna u dhammaanaynaa borotiin la'aan baa inagu dhici ilaa hilibka borotiin fiican baa laga helaaya caanaha wax walba cuntooyinka laga hela caanaha laga hela oon ka in borotiinka صدر رميغو عادي عاني كنو ليين عانوهنا فيتامين كستا اي ديف كستو راشيمها كلا كوجي عاناي كجيران waxa ka maqan kaliya caanaha hal shay oo borotiin la yiraahdo kuma jiro caanaha borotiinka xagee laga helaa hilibka iyo galeeyda alaabtaas baa laga helayaa remigu marka hawsha isku dhameystiranta caanaha wax walba kaga filan aan ka ahayn borotiin la'aan marka hilib la nool maayo shardiga in la xaqiijiyo rabaay hadi alqaacida qaacida luqadadu gashay ولقي لواي وقال امرأة المفقود أي قشي بينا قليس قبل مركا وقت واد راضي وحان كو قبينينا قاعدة يقول ضم بيسا نيكا داعيقا وهو ريالك أمدا وعنده ضدك قفكي سيركا أمد الدمينية صغيرة ديسو كبيرة نقطة خلاف الأولي سنة كره اسكو بدلية ولذلك زلة العالم وحال يدوا زلة العالم سيء صغيرة العالم وكبير علماء بلادي ذنب عامة صغيرة كوء أدق عالمك كبير من الكبار بس بدلية لماذا؟ تاسنا وإنه الداعي وإنها كوهايو إنه صدتك أسأقول الله ميد أهين كدوية وأمد الصحن كيدي وهو ريال كيدي وهالدور كيدي واحد كيدي ونكي دياشة مضنا إلا دبات تاقنا وإنه آدسو إلالي لقن كيسة دين تيسة ددنبا ديسة وإنه إلاشة وناق أمضى وإنه أقوه الرئيو حماه وإنه أقفق ياهي دبكا وإنه أساقو دبركو أريتو ديفتا وإنه آدمها أدايا كالي أخلاق دي أنبياء لغربا نينك داعيقا هذي لكن نقطة باش علماء الله اسكا صوت قالي آفوي ووحينا الدمينية دنبي يركب محو كبير ونقضي دنبي يرانينك عامة مركو السمي أظن محو كبير سكوب بدلية
waxay ku leeyihiin adiga dembigeeda waa lagu dayanayaa dembigeedu waa macsiyo iyo dhibaato gudbayso tallaabayso ummadda gaadhaysa aafa ninkeeda ku eg iyo mid hulaaqaysa soo ma kala daro maalin la weyd baan masalo fiqi ah annagoo meel weliba ku cunayna bakland dhaxda hiligam yaan ku kaftannay jigjigaa layga soo wacay masalada qudhigeedii inaan sidaa idhi qoliyaan qaraabayna meel ku cunayna cambuulo umbaanoo iska kaftamay masala saa ugu sheegay wadaaddaa saa qaba shoo wadaad raadinayaa meesha fadhiya baasha in badan ku dhibanaa ilaa jigji uu ka tuuray hargii la igaga soo noqota marka aad isu ilaaliya ma inaan sharxo dhowrbaashaasi anuu ma qabo inay mas'alo fiqi tahay wadaadku ogay soo wacay laakiin wuxuu iga raadinaya inaan anigu qabo ma qabaan anigu markaan kaftamayna kitaabkaasi ku taalaabaan idhi laakiin allah ay ka alla kaafu qumaysaati aad isu ilaaliya zallatu alcaalimi wa zallatu alcaalim سيئة وكبيرة خلاف أولاه ومكروه في الشرع ضدك واكدومي محل قدوة ضياش محل كيدي بوجوغا ضدك الله مد معها سدا اسكو القامة أو سدا كو شقية هذيك لا أدونك ورقمرية لما قضوا بويري رابان كو جبينا يا أنيقا إخوسي قضوا كوكوبات ومضى مسلم كي صوماليات dhallinyaradeedii xuqaasheedii culummadeedii indheergaradkeedii aad iyo aad ii garab istaagtay aflagaadadii xamar ka soo yeedhay baan aad ugu mahadnaqaaya man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah inaan si baan isu difaaco anugu aan faagtaan rabay laakiin waad igaga filaateen khayr allah idin siiyo inta fadhida iyo inta maqanba waxaa muslim lagu yahay in laysu hiiliyo xilliga hiila la kala mudan yahay marka bulshada hadday fadhiday inta maqanba hadalkii uu gaari doono waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo sidaa aad ii difaacdeen haddaan khaldamana ii qabta sidaa aad ii difaacdeen haddaan ugu khaldamana ii qabta nin walbo lagu xadgudbana sidaad ii difaacdeen u difaaca ummaddu intaasoo kale haddii laga helo wax badan baa inoo hagaagi lahaa taasi marka waa mahadnaq iyo inaan dhaho allah idin barakeeyo una duceeyo dadkii cirdigayga lagu xadgudbay i garab istaagay si wanaagsan bulshada intii qaybaha kala duwan rag iyo dumarba sagiir iyo kabiir caalim iyo caamaba waad mahadsantihiin nin baa laga sheegay nimaan ciilay baa i caaya nimankaa waxaa muuqanaysa inaan ciilay laakiin anuu ma qasdin intaasaan ku dhaafahayaa wixii kale idinkaa qaatay qodobka labaad ee ii raaca hawsha ka soo korodhay musabbixi iyo dhulba'aante anu wax ma marqarashee markay shinkeedu gaadho diiniyan baan oga hadli doonaa intaasi marka waa labada qodob aan rabay inaan baraarujiyo dhowr qodoboo marka keenaya burburkeenna diineed baan dulmari waana ka bixi hadalka waxaasoo burburaya dhibaato ah oon ka soo sheekeeya ama aad soo marteen waxaa asal u ah kitaabka rabbiga iyo sunnadii laga fogaaday iyo waxyaabo kaloon xal ahayn diinna ahayn oo wax la mooday caqli mujarad ah oo kitaabka rabbiga laga hormarasho naska sharciga ah oo la quursado oo wax kale la qiimeeyo hawadeenni iyo rabitaankeenni oo wax la moodo tii alleh laga tago qodobka labaad kitaabka rabbiga usuul fahmi loo qaaday dalaa'ishii sunnada ahayd iyo kuwii kitaabka waxyiga ahaa oo fahan khaldan laga qaatay waana waxaa adduunka taagan aad arkaysaan mushrikiin qubuuriya ummadda qabsaday shiicaa soo fakatay malaaxidii zanaadiqa soo fakaday intuba doonaya ummaddii muslimka ahayd si guud iyo soomaali si gaar ah inay u taliyaan nin walba ra'yigiisii baa deeqay cid kaloo wuxuu reebayana ma jiro waxaa la doonayaa qadiyad iyo masiir ummadeed in daa'ifo yar loo kufiyo oo ay kufsadaan
ayuu go'aan ka gaadhaan gondo geel baa le wax xaglag la geliyey ka weyn qadiyad soomaaliyeed oo ummaddan muslimka u dhaxaysa urur yar oo keligii ah go'aan kama gaadhi karo wadaadda 300 la soo urursaday xoogo shaah loo shubayna go'aan kama gaadhi karaan gabadha waxay tiri meesha laygu furaayo fogaad ha joogo ummadda Soomaaliyeed wadada loo qaadiyo diin waa in loo dhan yahay kitaabkan uu ka taliyo wadaadda caloolo hooskuusan xoogo shilmaa lagu shubtay Soomaali qadiyadeeda ma kufsan kara lama kufsan karo hawsha ayada bilqaysiga socon maayo 19 buu naga eka bilqa way dhamaatay Soomaali way soo jeedaa indhaad kala haysa waxaana ay tusay sidaad i difaacdeen rajo badan baa igelaysa mar walba oo si noolaado rajada intaad ay falka hadda aad wada intuu muuqdo Soomaali waxa u badbaadaya laana duqaydu ummadda noqon doontaan 20 sano kadib ragina dhalinyarada 30 iyo 20 iyo 40 ka jira 20 sano kadib Soomaali rag u tan labaad noqonaysaan maalinka idinku halka gaadhaan ummaduna wax badbaadaan rajeynaya Ilaahay idinkii waxyaabahaana waxba kama jiraan waa xagaayo way xagaayo socoto way xagaayada socotana Mareykan baa wada asagu Ilaahay wuu dumin ruush baaba hadda haya niyadaha iska xumaynina gaaskii sonkorta iska dajiya ummadana Ilaahay u bariya ayagaaba gaaleysaya marka isku mashquulaana way faraha naga qaadi doonaan insha Allah ta'ala qodobka saddexaad Soomaali buu khusaya dadkan Soomaalida ahayn hayga raali ahaadeen dadkan Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaag iyo masaalix gooni ah oo bini aadamku haysanin buu siiyay nicmooyin gooni ah nicmooyinka in la ilaaliyo u baahan yihiin inaad hawsha idinku baraarujiyo waa daruuri inta dawla islaamiya sheegata adduunka ay ka jirto ama bulsho idanka fiican oo islaam sheegata adduunka ay dhooban tahay nicmooyin idinku aad haysataan oo isan haysanin baa jira nicmooyinka haddaan la ilaalinina oo idan difaacina way idan dhaafayaan wayna socotaa sidii la idinku dhaafin lahaa nicmada maxaa ka mid ah inaad tiin dad muslimiina 100% adduunka kama jirto idinka mooyee soo heli maysaan adduunka isha mariya nation dhan oo wada muslim ah Soomaali bas laga helaa waa nicmo inaad ilaashataan ladinka baahan yahay adduunka waxaa laga helaa nation wada masiixo kristana Zambia la sheegaa Soomaa ahay Zambia la sheegaa haddana nation wada muslim kristan ma oo Soomaali baa tagtay oo 100% dhowr hadda ka wadanka nation ummad wada muslim ah oo Soomaali ahayn adduunka kuma hayno waa nicmo rabbaani Ilaahay idin ilaashada ilaalinteedii iyo dhowriteeda waqti idin ka baahan yahay aqoon iyo aqli iyo talo in la dhantaalana waa la rabaa way socotaa kristan baa la idinku bilaabay dhaqamo xun baa la idinku bilaabay mulxidiin baa la idinku bilaabay hay'adaha shaqeynaya dawladda baa ilaalinaysa la socda nicmada labaad ummadana wada muslima xaqna sunni adduunka laga meelo dib u fiiriyo soo heli maysaan ummad 100% muslima xaqna sunni oo shiico iyo raafido iyo baqti iyo kuwa dabcaab iyo kulubkaan iyo xoolo sheedan la soo heli ma idinka aan ka ahay nicmadana waxay idinka rabtaa inaad ilaashataan inta maxaa dheer oo nicmo saddexaad ah hal dal oo wada degtaan oo xaqna isfahmaysaan oo isku dhaqana oo isku fahana oo isku aragti ah baatihiin tii dalkii waxadadii dadkii waa la qaybiyay shan baa la idinka dhigay gumaysta idin qaybiyay maxaa idin soo haray islaamnimadkii iyo sunninimadkii islaamnimadkiina waa horaa la bilaabay in la idinka saaro 1960
dal afrikaan oo dimuqraadiyaan qaatay yidhaahda oo boqolkiiba boqol dabaqa Soomaaliya ugu horeysay adduunka lagama helin waa duulimaad cad inaad fahantaan baan rabaa dibu fiiriye adduunka dhan fiiriye xilligu aan cad dimuqraadiyada feermeeyay afrikaan dimuqraadiyad maysan aqoonin Kenya xataa lagama aqoon qaabka Soomaaliya u dabaqday waxaa la dhaawacayaa tiirkii ahaa islaamnimada in siyad barre markuu shuuciyada qaatay dawlad afrikaan oo qaatay ma jiro shuuciyadii buu dhaafay hanti wadaaga ku salaysan cilmigu la soo istaagay markii liini ragooda waxay dhahaan anaga baan gaadhin xagga u socotay siyad barre ayaa la yaabay meesha maray anaga baan gaadhin ba hanti wadaaga ku salaysan cilmiga bal falsafada meesha intay dhanta dimuqraadiyad aan weligeed iyo dawlad madaniya aan adduun laga dabaqin afrikaan u jeeda iyo xataa caalam alcarabi bay Soomaali dabaqeen waa goorma lixdanka anuu ma dhalanin intiina kalena iska badaayay diinkeedii baa duulimaad lagu yahay hadda maxaa taagan dimuqraadiyadii hadda taagnayd ee soo bilaabatay waa dhaxdeera waxay maraysaa waxaan adduunka ka dhicay in la idin maransiiyo xataa gaalnimadii xataa la idinku sii xadhaafinaya waxaa leeyahay boqolkiiba 30 haweenku waa inay qaato adduunka kama jirto bal ka soo hela maraykanka dimuqraadiyada qaybinaya iyo kuwan qaybiya qoondo u gooni ah dumarka ma jirto ha soo tartameen waxay heshaan aragnay la taagan yihiin laakiin Soomaaliya maxaa la yidhi ma soo tartamayaan boqolkiiba 30 baarlamaanka waxaa iska leh dumar waa dimuqraadiyadii ma jirto waa reer lagu soo duulay in la baabiyaa la rabaa waxba loo reebin xataa gaalnimadii tooda koonoma ogolo war aan gaalowne tiinoo kale maya waana ma dhaaftaa tusaalaan inaad fahantaan ma qosol ma hawsh qosol ma xaajid inaad fahantaan ma rabaa xataa isteejkii ayagu ay marayeen noomay ogolo wayna dhaafinayaan lixdankii bayna dhaafiyeen maxayna dhaafiyeen 77 goormuu qabsaday 69kii inay sid baran dhaafay isaguna haddayna dhaafinay ma ogola isteejka gaalnimada ka jooxda nooma ogolo ninka noocaas miyaa islaamku u ogolaanay maxaa soo haray sunnanimadkii sunniyiin shiica la idinku bilaaba raafido baarlamaanadka dhex fadhida meel walbay ka dinaayinayaan waa la wadaa dalla waa lidima ogolo inuu idin midaysnaado diinna lidima ogolo dadnimana lidima ogolo nicmooyinka ilaahay idin siiyey tala iyo difaac iyo alla bari bay idinka baahan yihiin kelimadu intaasay ku eg tahay wixii aan khalday inuu qasna allah ii dhaafo wixii wanaageen sheegana allah idinku anfaco والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته